sideed airport ee ugu halista badan adduunka. Safarka hawadu waa hab caan ah oo dadku ku safraan, sababtuna ay tahay inay meesha doonayso aad ku tagto waqti gaaban. Safarkiisuna waa raaxo, sidoo kalena adeegiisuna waa mid fiican. inkastoo ay qurux badan tahay diyaaraddu, haddana waxa walaac xoog badan laga muujiyaa badqabka garoomada ay isticmaalayaan. Daraasado hore oo la sameeyay ayaa muujinaya in diyaaraddu markay ugu khatarta badan tahay ay tahay markay kacayso iyo markay soo cagdhiganayso. waana ka khatar badan tahay markay hawadu ku jirto, oo labada waxa la qaatay markay hawadu ku jirto. जिसमें 250 यात्री मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो चुकी है। haddaba aynu eegno garoomada ugu khatarta badan adduunka. garoonkan wuxuu ku yaalaa jasiiradda Saba ee dalka Holland, waana mid ka mid ah garoonada diyaaradeed ee ugu yar baaxad iyo balcaba. balciisuna waa 396 mitir. qiyaas ahaan wuxuu leeyahay 4 xabo garoomada kubadda cagta ah, waana mid ka mid ah garoomada ugu yar adduunka. dalka New Zealand waa mid ka mid ah dalalka ugu buuraha badan caalamka, waxa gabi ahaantiiba ku xeeran bad iyo buuro. garoonkan wuxuu leeyahay hal dhabo oo diyaaraduhu ku ordaan, waxaanu leeyahay joog dhan 2500 oo mitir. wuxuu ka bilaabmaa badda, sidoo kale wuxuu ku dhamaadaa isla badda. garoonkan waxaa loogu magac daray Windy oo ah dabaysha xoog badan ee ka dhacda dalkaas. maadaama waddanka yahay mid dabal badan, waxa diyaaradda loogu magac daray Windy. garoonkan wuxuu ku yaalaa jasiiradda oo u dhow xeebaha Moho ee dalkaas Holland. diyaaraddu markay cagdhiganayso iyo markay duulasaba waxa dul maraya diyaarado ku duulaya joog hoose oo aad ugu dhow madaxa qofka taagan. waa garoon diyaarad oo sanad kasta wax ka safra rakaab kor u dhaafiya 1.8, waxaana halkaas ka howlgala 170 diyaaradood maalin kasta. 17 duuliye oo kaliya ayaa loo ogol yahay inay garoonkan ku soo degaan. si kastoo khibrad u leedahay masalan, laakiin 17 duuliyaal waxa la siiyay ogolaansho gaar ah, sababtuna ay tahay xaaladda garoonku aad u qalafsan ama aad u xun. sidoo kale dad hore u ogeed in habeenkii diyaaraddu duusho, halkan habeenkii diyaarkama duushay ee maalinta qurata ay diyaaraddu duushaa. sidoo kale maalinta laftirkeeda markay diyaaraddu soo degayso aad ayaa loo taxadiraa. buuraha oo dhulkaas ku badan awgeed, waxaa garoonkan dhisay oo markii ugu horeysay dhisay oo saldhig u ahaa ciidamadii Hindiya oo waxay u adeegsan jireen diyaaradaha qumaadka u kacaya. garoonkan wuxuu ku yaalaa buur dheer dusheeda. buurtaas cabirkeedu waxa weeye 518 mitir. intaas ayna dhulka ka sareysaa. diyaaradahan cid hagta ma jirto cimilada xun awgeed. halkaas duuliye kasta ma tii karo oo duuliye khibrad weyn u leh ayuu markaas ku dejin kara diyaaradda. garoonkan waxa ku hareeraysan buuro dhaadheer, kuwaasoo keena isbedel cimilo oo joogto ah marka laga soo tago dhabaha diyaaraddu ku socoto. garoonkaasi waa meelaha ugu daran caalamka ee dabeelaha xoogani ay ka dhacaan. garoonkan waxa loogu magac daray ciyaaryahanka weyn ee kubadda cagta ee Cristiano Ronaldo, maadaama ku soo jeedo halkaas. sidaas darteed ay ugu sharfeen da'yartoodaas ciyaaryahanka ah. garoonkan wuxuu ku yaalaa agagaarka meel buuro ah, waxaanu leeyahay waddo ciriiri ah, waxaana isticmaalaa diyaaradda markay soo degiso iyo markay ka duulasaba. cimilada deegaankan waxa uu heliyaa dhagaxaan iyo ciryaamo. sidaas darteed marka diyaaraddu fadhiisanayso ama soo kacayso waxay dareentaa ciriiri aad u badan, maadaama dhagaxaanta iyo ciryaantu aad ugu badan yihiin. duuliyu markuu diyaaradda kicinayo waa inuu si degdeg ah u duuliyaa, haddii kale waxay sahlaanaysaa inuu ku dhufto buur ama inuu ku dhufto guri oo kadib sidaas bini'aadam iyo dhaqaalaba ku xumeeyo ama ku baabi'iyo. garoonkan 1934 wuxuu qaadi jiray in ka badan 800,000 oo rakaab sanadkii. airportkan waxa ku hareeraysan tiirooyin dhaadheer iyo buurooyin badan. wadada duulimaadkuna waa 526 mitir oo dhererkeeduna yahay 526 mitir. halka garoonka biloomana waxa ku yaala gidaar dheer, halka ku dhamaanaya waxa ku yaala isna jeex weyn. garoonkan waxa loo arkaa ka ugu khatarta badan adduunka, sidaas darteed ayuu kaalinta koobaad ugu jiraa. khatarta garoonkan waxa weeye jidkiisa oo gaaban iyo buurooyin badan oo ku xeeran. duuliyuhuna hadduu sameeyo wax yar oo khalad ah ma jirto si uu ku badbaado. shilka ugu xasuusta badan ee halkaas ka dhacay uguna xumaa wuxuu dhacay 2008 faleedkii 103, waxaana halkaas ku burburtay diyaaraddii oo dhan, waxaana ku dhintay rakaabkii saarnaa diyaaradda oo dhan, waxaana ka badbaado qurata duuliyihii diyaaradda. जिसमें 250 यात्री मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हो चुकी है।
मुंबई से दुबई के लिए टेक ऑफ किया। ऑफ कोर्स होकर गायब किया गया।